وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي أيتا وليغا هذه يماتنا إيمانكي سدغالي walaalaha barnaamijka ayaa u maqan dhammaan intii bogaadisay iyo intii taageertay waan idinkaga mahad celinayaa waan guulaysanay guul baan gaarnay waxaan u istaagnay inaan walaalaheen dhibban oo abaaruhu sameeyeen aan wax u qabanno ma ka daalimayno waxaan u shaqaynaynaa walaalaheen Soomaaliyeed ee dhibanayaasha adigu haddaadan damiir lahayn oo aadan ka daqnayn dhibaatada maanta waddankeena ka jirta anigu waa ka daqnanayaa shaqada aan watana adiga daraada uma joojinayo salaamu calaykum adeer salaad nuur gadaar waxaan isku soo aragnay hadda ka hor degmada saaxo xilli aan shaqooyin halka ku mareeyay adeer waxa uu kamid ahaa walaalaha Soomaaliyeed ee gobolka Mudug sare caanka ka ah ee deeqsinimada iyo raganimada iyo hantida iyo maalka lagu yaqaan ayuu kamid ahaa abaarihii ayaa saameeyay sida daraadeed walaalaha Soomaaliyeed oo ka daqnaday dhibaatada jirta ayaa aniga igu soo hagaajiyay kharashaad ay ugu tala galeen dadkii asaaxa ku soo musawirtay ayaan ugu tala galnay marka waxaan aad ugu mahad celinayaa maama Caasho Cali Qaylo oo ii fududaysay inaan maanta guushaan gaarno oo adeer Salaad Nuur Gadaar iyo adeer Dhagfiin oo labadaba sax aan kula soo kulmay maanta aan xaqoodii guddoonsiinayo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu halkan ka cadeynaa walaalahayo walaalkayo inuu aad iyo aad dadka walaalihiisa uga dangaday oo shaqeeyay Soomaalinimo iyo Muslimnimo iyo Ilaahiinkiisa kuwii la halmaala sida awgeed kuwii noo soo diray oo walaalahaya oo ay ka mid tahay Caasho Cali Qaylo waxaanu celeynaa aad iyo aad mahadtii ugu fiicnayd salaam wanaagsan waa salaarnay 14 boqolaan ku salaarnay inay xuquuqdaasina soo gaadhay nadala bariisa nadala sankora caag saliida mid timira inay soo gaartay yaan cadeynaa waxaan u cadeynaa walaalkayo aad iyo aad waa mahadsan yahay asaga saxaafadda naga gudbiyay wuxuu nooga gudbiyay walaalnimadii iyo ishii uu nagu fiiriyay waxaan weeye ummadda halka joogta yaan la qabnaa waana aad iyo aad baan rajaynaa in maaragtay adduunweynuhu ka dhaga qaado sida awgeed walaalaha halka jooga waa tiro badan yihiin waa dad soo korreeya waa dad Ilaahay idinkiisa ma garanaysaa ka soo baxaya meeshii xoolo ku dhaafeen oo abaartu qaaday biyihii iyo degaankii ay yaqiineen ay ku soo dhurmayaan haatan waxa soo gaadhay ugu yaraan ya soo gaadhay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ya umaqan walaalaha Dhagfiin Xasan Faarax bahada u yeeraya oo asaga raashinkiisii aan ku wareejinayaa Dhagfiin Xasan Faarax waxa uu ka mid yahay dadkii aan kula soo kulmay degmada Saaxo ee gobolka Mudug halkaas oo ka mid ah meelaha abaartu ay sida ba'an ay ugu habsatay Dhagfiin waxa uu lahaa lo'diisii waxay ku baaba'day abaarta maanta jirta sida daraadeed Dhagfiin cidii maanta wax u heli karta oo walaalo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan adeer naga guddoon ka guddoon haye maxaad leedahay waxaan leedahay waa salaam wanaagsan kuwii noo soo dhiibay iyo kuwii noo keenayba aad iyo aad baa u salaamaya صح inta waxa raaca abaarta waa siyaad صح dadkii waa soo kulli waa yimi صح waxa la abaarti waa si baan mid baan oo dadkii jiro laga baqayo صح baatimid ilaahay waxaan u mahad celinaynaa kuwii noo dhiibay noo soo dhiibay iyo kuwa noo keenay ilaahay kor ha ka yeelo waxaan aad iyo aad ka codsanayaa inay gacanta lagu qabtaan salaam calaykum dhibaatada maanta waa laga bixi doonaa hadduu ilaahay waxaan kaloo rabaa cid ugumana dhiibeen haddaan nahay walaalaha ayaa u maqan maama Caasho maamadii nala joogtay hadda magaalada ma ay joogto saaxa ay joogtaa labadiina waa idinku aaminayaa adeeraday baa tiin walaalahay baa tiin dadkaygii baa tiin alaabteedii baan idin dhiibayaa waxaan rabaa inaa u geysaan waaya insha Allah waaya Thank you.
تادي تين adiga taadi waa mahadsantihiin oo wada shaqeyn doona adeer duula walaalahayga dadka wada ka daqnadayna waxaan leeyahay guuleysta anigoo imaam maxamed gaaniya ma ka daalayo shaqada aad dadkayga u hayo ma u joojinayo qof intuu meel fariistay wuxuu raba iska soo qoray waa mahadsantihiin guuleysta waa guuleysanaynaa abaarta waa ka baxaynaa dadkeenna waa u shaqeynaynaa ilaahayna waxaa weydiisanaynaa inuu roob madar khayr qaba uu na siiyo oo degdeg